السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركلة سودا وادا مانتا وقميس وانا كودا بشا جانوري كوبا سنة كاللبادة وكون إيا اللحية اللباتنك وموقالك وهريي سنة كعصب سنة وناكسن يعني دلائي هاي موقال كان وحن ربائنا ندي كل وداقو qaar ka mid ah xubnaha Republicanka ah ee ku jira baarlamaanka gobolka Minnesota gaar ahaan waliba hogaankooda ayaa waxay sheegeen in ninkii cadaanka ee cunsuriga ahaa ay kala shaqeeyeen in muuqaaladaasi uu sameeyo arintaasi waan idinla wadaagayaa sidoo kalena waxaa jirta in madaxda dheekeerada lacagta ay ka joojisay dowladda federaalka ah ee shalay mudaharaad ay ku qabteen aqalka looga arrimiyo gobolka Minnesota iyagoo sheegay in qoysaskan dhaqaalahoodu hooseeyo haddii lacagahan dheekeerka laga jarto ay noqonayso in aysan wax mushaar helin oo waalidiinta aysan shaqo aadin kadibna ay guryo la'aan noqdaan iyagoo ku baaqay in aan la siyaasadaynin lacagtan caruurta looga sii haynayo waalidiinta inta ay shaqada ay ku maqan yihiin maayarka cusub ee magaalada New York Zoran Mamdani oo xalay la dhaariyay markii sanadka cusub uu dhashay waan idinla wadaagayaa wasaaradda amniga gudaha Mareykanka oo sheegaysa amaba sheegtay inay dib u eegayso dhalashooyinka horey loo siiyay Soomaalida iyo kuwa hadda kadib la siin doono iyadoo sheegtay in laga yaabo in dadka Soomaalida qaarkood dhalashooyinka Mareykanka laga laabto arintaasi waan idinla wadaagayaa maxay yihiin sharciyada cusub sanadka cusub dhaqan galaya gobolka Minnesota oo paid family leave oo ka dhaqan galay iyo 19 gobol oo iyagu kordhinaya lacagta saacadii looga shaqeyn karo goboladaasina waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay muuqaalkii wiilkii cadaanka ee cunsuriga ahaa uu ka duubay ilaa iyo 10 daycare oo caruurta lagu hayo ee gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis in guud ahaan wadanka iyo caalamkaba saameyn xoogan oo videogaasi uu ku yeeshay laakiin hadda waxaaba soo baxayaba in hogaanka xisbiga Republicanka ah gaar ahaan xubnaha ku jira aqalka wakiilada ay yiraahdeen annaga ayaaba kala shaqeynay sidii uu goobahaasi uu u tagi lahaa haweeneyda afayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota oo Liza Demuth la yiraahdo haddana u sharaxan in gudoomiyaha gobolka sanadkan dhamaadkiisa in ay noqoto xubnaha u sharaxan kamid ah ayaa waxay tiri muddo sanadaha waxa isku dayeen inaan shaaca ka qaadno musuqmaasuqa ka jira gobolka Minnesota waxa ina tiri hadda inaga ayaa ku caawinay in muuqaalkaasi uu duubo ninkan cadaanka ee cunsuriga ah ee Nick Shively la yiraahdo sidoo kalena xildhibaanka kale ee la yiraahdo isagana Harry Niska oo Ramsey laga soo doorto isla markaana gudoomiyaha aqlabiyadda ah waxa uu yiri inta badan warbixinada uu sheegay ninkan waxaba ka caawiyo leeyahay shaqaalaha inaga noo shaqeeya ayaa ka caawiyay marka xubnaha Republicanka waxay qiranayaan in iyagu ay mas'uul ka ahaayeen in ninkan cunsuriga ah uu tago goobahaasi isla markaana uu soo duubo walow hadda ay muuqanayso musuqmaasuqa sida uu sheegayo inaysan waxba u jirin haddaba waa kuwan labadan xubnood oo ah afayeenka aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota Liza Demuth oo gudoomiyaha gobolka u sharaxan iyo waliba Harry Niska oo ka hadlaya arintaasi oo dhahaya inaga ayaa ku caawinay ninkan dhalinyarada ee cunsuriga ah in uu soo duubo muuqaaladaasi bal ila daawada. Our caucus has been working to expose fraud for years, including working with Nick Shirley. Much of the information that one of the gentlemen in that video was providing was due to information he got from the House Republican staff. sidoo kale shalay aqalka State House-ka ee looga arrimiyo gobolka Minnesota waxa mudaharaad ku sameeyay qaar ka mid ah madaxda dheekeerada oo dawladdu ay lacagta ka joojisay Minnesota oo kaliya ma aysan ka joojin dawladda federaalka ee guud ahaan wadanka ay ka joojisay waxay tiri hadda kadib lacagtii aan bixinayno cadeyn ayaan u baahanahay marka waxay maamulayaashan ay sheegeen inaan loo baahnayn arintan in la siyaasadeeyo boorar ay soo qaateen oo ay leeyihiin lacagtan caruurta yaan la siyaasadeynin isla markaana sidoo kalena caruurta lacagahooda ha loo soo fasaxo waxa ay leeyihiin waalidiinta low income ka ama dhaqaalahooda hooseeyo caruurta waxay keensan jireen xilliga maalintii ah daykeerada si ay shaqo u tagaan marka waxay leeyihiin hal bayjeeg amaba hal bayjeegaasi oo la soo siiyo waalidiintaasi ayaa uga dhiman in ay guryo la'aan noqdaan waayo haddii caruurtii aan la keenin meesha waalidiintii inay guryaha ku hayaan ayay noqonaysaa waalidiintiina haddaysan shaqo aadin mushaar ma helayaan haddii aysan mushaar helin kiradii guryaha iskama bixin karaan oo guryo la'aan ayay noqonayaan xubno dimuqraadiyiin ayaa sidoo kale kala qayb galay oo dhahaya arintan maamulka Trump waa uu siyaasadeynaya laakiin wax musuqmaasuqa kama jiraan 185 milyan
oo la siin jiray ilaa iyo 4,000 oo daycare oo ku taala guud ahaan gobolka Minnesota isla markaana 30,000 oo qoys ay ka faa'iideysan jireen ayaa hadda lacagihii laga jartay marka waa kuwan qaar ka mid ah madaxda in daycarada oo shalay iyagu mudaharaadkan ku sameeyay xarunta baarlamaanka gobolka Minnesota ama aqalka looga arrimiyo gobolka Minnesota waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Imagine my surprise at this narrative that it's so easy to scam child care assistance. Many of the families at my center are one paycheck away from becoming homeless. I'm not exaggerating. If child care assistance is turned off, children can't come to care. That means their parents can't go to work. If they don't go to work, they don't get paid. They risk losing their jobs. Fraud prevention is about policy and not politics. It's about solutions and not spectacle. But everything that we've seen from the federal government this week is about politics. 75% of the children at our program qualify through the state for child care funding. We can't afford to continue to operate if we lose 75% of our enrollment. Without child care assistance funding, our center will close within a month. dhinaca kale maayarka magaalada New York Zohran Kwame Mamdani oo bishii November horaanteedii ee sanadkii dhamaaday 2025 duqa magaalada New York loo doortay ayaa xalay la daariyay sida sharciga kooda bisha January ayuu xilka la wareegaa maayarka la daariyo marka xalay markii 6 saac habeenimo ay ku dhacday oo sanadka cusub bisha January ay koob noqotay ayaa waxa xarunta dawladda hoose ee City Hall-ka ku dhaariyay xiraalyaha guud ee gobolka New York Letitia James iyadoo waliba xaaskiisana kitaabka Quraanka ayaa lagu dhaariyay xaaskiisana ay u haysay ayaa halkaasi lagu dhaariyay laakiin waxa la yaab leh marka la dhaariyo maayarka magaalada New York maayar kastaba waxa looga baahan yahay in uu bixiyo lacag $9 ah $9kaasi waxay tahay in lagu file gareeyo daartiisa macnaha filinka karaaniga ama kalaaga ayuu ku wareejinayaa $9 ayuuna diibay markii la dhaariyay kadib sida halkan aad ka arki doontaan marka shaqadiisu maanta ayay si rasmi ah ugu bilaabatay maayarka magaalada New York waliba si lama filaan ah oo la yaab leh ku soo baxay Trump markii hore uu ka soo horjeeday laakiin markii la doortay kadibna uu aqalka cad ku casuumay isla markaana uu ku soo dhaweeyay waxana uu sheegay in ay wada shaqayn doonaan haddaba waa kan maayarka markii la dhaarinayay ila daawada. Please repeat after me. Raise your right hand. I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, sir. And may I now ask for your $9 fine? You may ask for my $9. There we go. This should be exact change. Excellent, Mr. Mayor. Thank you very much. dhinaca kale wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay dib u eegis u sameynayso kiisaska dadka dhalashada la siinaya ee Soomaaliya ka yimid iyo wadamada kale oo madaxweyne Trump travel bank uu ku soo rogay oo iyagu qatar u keeni kara muwaadiniinta Mareykanka sabab la xiriira in musuqmaasuq Soomaalida hadda si aad ah loogu eedeynayo marka wasaaraddu waxa ay xaqiijinaysaa in hadda dib u eegis lagu sameynayo kiisaska immigrationka ee 19kaasi wadan oo madaxweyne Trump uu travel bank ku soo rogay isla markaana Soomaalidu ay kamid tahay waxaana sidoo kale laga yaabaa in qaar kamid ah dadka dhalashooyinka qaatay dhalashooyinkii lagala laabto waxaana wasaaradda amniga gudaha ay xaqiijinaysaa in 19kaasi wadan oo Soomaaliya ay ku jirto go'aan laga gaarayo in shakhsiyaad kamid ah dhalashooyinka la siiyo waatii hadda la joojiyay dad qaar xitaa interviewdii ku baasay in dhaartii laga kansalay amaba xitaa dib loo dhigay waatii dhacday marka waxa ay leeyihiin hadda dadka sidoo kale horay u helay citizenshipka ama dhalashada qaatay oo laga yaabo inay musuqmaasuq ku lug leeyihiin waxa macquul ah in arintaasi ay ka dhalato in dhalashooyinka lagala laabto marka waxa sharciga Mareykanka kamid ah in shakhsiyaadka iyagu si
been abuur ah ku qaatay dhalashada qofka haddii lagu helo immigration fraud wax la yiraahdo oo markii wadanka uu imaanayay ama markii green card uu qaadanayay ama markii dhalashada uu qaadanayay su'aalihii la weydiiyay haddii uu ka been sheegay waxay ka mid tahay waxyaabaha dhalashada la isaga la laaban karo ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin waxay leedahay arrimahaasi haddii lagu helo in dadku ay been sheegeen dhalashada waa laga laaban karaa waxaa sidoo kale ka mid ah hadda dadka Soomaalida ah ee lagu helay musuqmaasuqa oo la xukumay markay xabsiga ka soo baxaan dhalashada inta laga laabto waa la musaafurin karaa sidoo kale waxaa ka mid ah qofku intii immigrationkiisa oo Mareykanka markii uu imaanayay markii uu dhalashada qaadanayay sida hadda marriage fraud ko kale in markii uu guursanayay ama qof war Mareykanka uu keenay waan qabaa uu been abuura waxyaabahaas oo idil hadii lagu helo waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka dhalashada loogala laaban karo waxaana wasaaradda amniga gudaha ay xaqiijisay inay adag tahay in qof si fudud dhalashada Mareykanka loogala laabto ama sharciga looga qaato maxaa yeelay sharciyada loogala laaban karo ayaa adag laakiin haddii lagu helo in sharciyadaasi uu jabiyay waxay micnaheedu tahay in dhalashada lagala laaban karo marka ilaa sanadkii 1990 aad ayay u adkayd tayar ayaa sharciga lagala laabtay ama dhalashada laakiin hadda sida muuqata waxa laga yaabaa in dadkii lagu helo dhalashada lagala laaban karo sharciyo cusub ayaa guud ahaan gobolada Mareykanka ka dhaqan galaya sanadka cusub waxaa ka mid ah in 19 gobol in ay kordhiyeen mushaarka saacadii looga shaqeyn karo waxaana goboladaasi ka mid ah haddaan idin dulmaro Arizona $14.70 ayaa saacadii markii hore lagu shaqeyn jiray hadda $15.15 ayay gaarsiiyeen California oo kale $16.50 ayaa lagu shaqeyn jiray $16.90 ayay gaarsiiyeen marka wax badan maahan 40 senti ayay ku dareen laakiin dadka ka shaqeeya maqaayadaha fast foodka sida McDonald iyo maqaayadahaasi oo $20 ayaa saacadii iyaga looga dhigay Colorado $14.81 ayay ahaan jirtay hadda waxaa laga dhigay saacadii $15.16 gobolka Connecticut $16.35 ayay ahaan jirtay waxaa laga dhigay $16.94 Florida $15 ayay ahaan jirtay laakiin September ayuu dhaqan galayaa sodonkeeda sanadka 2026 lacag kordhintooda Hawaii oo kale $14 ayay ahaan jirtay $16 ayaa laga dhigay $2 ayaa lagu daray Maine $14.65 ayay ahaan jirtay $15.10 ayaa laga dhigay Michigan $12.48 ayay ahaan jirtay waxaa laga dhigay $11.41 Missouri iyadu waa $15 Nebraska waa $15 New Jersey iyadana waa la kordhiyay lacagteeda lama shaacin sidoo kale waxaa ka mid ah in gobolka New York oo isagana $16 laga dhigay meelaha qaarna waa $17 ba sidoo kale gobolka Minnesota isagana $11.13 ayay ahayd laakiin waxaa laga dhigay $11.41 oo kaliya ayaa lagu daray gobolka Washington State ayaa $17.13 laga dhigay ugu dambeyntii sidoo kale dhinaca Minnesota waxaa jirta in sharciyada dhaqan galaya ay kamid yihiin qofku haddii uu 4 saacadood shaqeeyo in uu helo 15 daqiiqo oo break ah oo ama masquul uu ku galo ama uu ku cunteeyo haddii uu 6 saacadood shaqeeyana in uu helayo 30 daqiiqo oo break ah sidoo kale waxaa la dhaqan galiyay family paid leave ama Minnesota paid leave programka ayaa dhaqan galay waxaana qofka la siin karaa haddii ilmo ay u dhashaan ama uu xanuunsado 12 toddobaad oo fasaxa uu helayo lacag gaaraysa ilaa $1423 isaga oo aan shaqaynaynin laakiin aan waxa loo baahan yahay cadeymo qofku ID-giisa meesha uu ka shaqaynayo inuu soo diro ama sidoo kalena dhalashada ilmaha u dhashay cadeyntooda ama haddii uu xanuunsan yahay dokumentiyada isbitaalka inuu soo dhigo marka haddii aad dadka oo 1099 ku shaqeeyo oo self employedka sida Uber iyo Lyftiga wada iyagu kuma jiraan amaba taraagada laakiin haddii taraagadu uu company uu yahay oo W2 aad qaadato waa ay ku jirtaa laakiin waxaad ka apply gareyn kartaa paidleave.mn oo Minnesota laga soo gaabiyay .gov haddii aad doonayso inaad apply gareyso marka hadda application fara badan ayaana soo gaaray ayay leeyihiin maanta ayaana si rasmi ah ay sharciyadaasi gobolada Mareykanka uga dhaqan galayaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo